السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channelka ما إن شاء الله waxaa idin wadaa video oo ku saabsan cuntooyinka cunay isbuuc kaamila ama week kaamila videoga wuxuu ku siinayaa fikrado cuntooyin sahla oo maxaa ahado aad ku samaysan kartid guriga oo healthy ah cuntooyin badan aad jira oo maxaa ahado choices badan aad soo galiyay waxaan rajeynayaa inaad ka heshiin haddaad jeceshahay daayad miisaan dhimis waxaad ka helaysaa channelka marka maxaa ahado subscribe noo saar like iyo share anaga ilaabin qayb idin rajeynaa insha Allah waxaan rajeynayaa ka heshiin videoga subaxii markaa soo kaco waxaan ku af bilowdaa biyaha aad ay muhiim u yihiin marka indhaha kala qaadid waxa ugu horeeya afkaaga galaan inay yihiin sidoo kale subaxdan xoogaa yar waa hargabsanaa marka qadama labaa ku darsaday marka malabka aad u fiican yahay markay subaxii la qaato qofkii hargabsan طبعا maxaad hadda cabaar joogay bakeeri qaxwo cabay qaxwada laazim waa maalintayda qaxwo la'aan ma bilaabato quraacdii waxay ahayd quraac aad u fudud subaxii waxaan quraacdaa 3 saac ama 4 saac laba waqti wax cunaa marka maanta waxaan cunay quraac aad u fudud ahayd waxay ahayd yogurt iyo granola iyo moos granolada waxaa waaye boorash iyo maxaad mukasaraad waxyaabo la isku dardaray oo xoogaa la gaduuday dabka saaray macaan waaye dheragna way keentaa marka haddaad jeceshihiin inaa idin tuso sida loo sameeyo granolada waa ay ku soo qori kartiin commentiga waatanaa quraacdii quraac aad u fudud waaye oo waqti badan qaadanaynin ilmahana way ka helayaan haddaa maxaad ilmaha bartid inaad siisid waa wax isbedel ah oo waqti dabna ma saaraysid waxna ma kugu qaadanayo granoladana haddaad samaysid wax badan inta la samaystaa lagu ritaa container cabaar markaa joogay muddo duhuradii meelahaas waxaa cabay cabitaankan waa biyo iyo qaro iyo liin dhanaan oo baraf ku dhex riday qaraha waa cunayaa hadhowdii badanaa snack ma cuno laakiin maxaa ahaado snack kana ka dhigtay cashadii ama wajbadii u dambeysay 11 meelaha saacunay waxay ahayd rootiga ama khubsiga shaciirka aad soo galiyay channelka iyo bajiyo oo saliid lagu dubin oo kaliya maxay birtaawada lagu gadgadiyay iyo hal xabo ukuna iyo ansalaato sidoo kale haddaad jeceshiin bajiyaha sida loo sameeyo bajiyaha Soomaaliya waa taqaaniin laakiin si oo healthy ah commentiga igu soo qora insha Allah waa idin soo galin doonaa maalintii labaad waxaa ku quraacday pancake buu ahaa pancake ilmaha quraacda u sameeyay marka aniga xoogaa ka qaatay pancake waxaa jeclaa inaan ku cuno moos iyo loos casriyadii waxay ahayd daango iyo timir iyo qaxwo cashadeenana waxay ahayd cambuulada aad uga helaa sida cambuulada guduudan daangana korka markii laga saaro iyo bun runtii macaan waaye iyo hal qaado saliid macsara cunto lagu dhargaayo waa cunto dhaqameed waaye oo cheap ah oo raqiis ah ka heli kartid meel walba marka tijaabiya sidaan inaad u cuntiin quraacdayda maalintii saddexaad waxay ahayd avocado toast iyo toast hal xabo avocado mariyay iyo maxaa ahado yaanyo midka kalena waxaa mariyay loos iyo jam ama murabba avocado runtii avocado toast love baa ku ahaa iyaantan marka waad arki doontiin videoga wax badan anoo cunaayo waa caajisanaa maanta markaa cunto ma samaysan waxaas haystay induumida karkarsaday hal xabo ukuna furiyay iyo ansalaato ku cunay induumida kaligeeda dherag ma laha laakiin markaa ku dirsatay qudaar way macdahay quraacdayda maanta waxay ahayd maalintii afraad healthy pancake buu ahaa pancakean channelkaad ka helaysiin waxaa laga sameeyay boorash waxaa ku darsaday loos iyo qaado malaba iyo moos iyo koobkayga qaxwada pancake-gan oo boorashka laga sameeyay aad buu u macyahay wuuna ka dharag badan yahay pancake oo burka cad laga sameeyo marka tijaabiya channelkana wuu ku jiraa haddaad rabtiin snack waxaa cabay caanaha qorfaha channelku ku jira asagana faa'iido badan uu leeyahay uuna macyahay
qadadaydii ama waqtiga wajbada u dambeys cunay waxay ahayd shawarma salad baradhada ma dubin waxaa ku sameeyay foornada sidoo kale aan salaata jarjaray iyo xoogaa yar oo chicken oo shawarma camal u dhandhanaaniyay maxaa yani qadadan qada aad u macaan waaye waxaa ku darsaday hot sauce ama sriracha noocaas jeclahay qaado mayonnaise iyo xoogaa yar oo shata shawarma salad intaad ku cuni lahayd shawarmada rooti ku cuni lahayd aan salaata ku darsan kartaa iyo baradhada aad bay u macdahay tijaabiya sidaan waxay naga haysay xoogaa cabitaan aashita leh marka waxaa cabay Pepsi diet runtii qadadan qada aad u macaan waaye aad ugu dhergaysid oo healthy rootina uma baahnid marka waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad tijaabisiin maalintii shanaad quraacda waxay ahayd canjeero iyo dalac bilaashka ka shidneed hal xabo ukuna fuuriya ku darsaday canjeerada dalac bilaashka aad u macaan runtii waa quraacdeen anaka Soomaali hadaan nahay subax kasta canjeero la cunaa laakiin ani marka subax kasta ma cuno mar dhifaa cunaa waana ka helaa cashadii waxay ahayd salbuko ama digir cagaaran oo la dalacay iyo ansalaato salbukada faa'iidooyin badan bay leedahay protein bay leedahay vitamin B6 iyo waxyaabo fitamiino badan marka waxa idinku dhiirigelinayaa inaad cuntiin sida idin sheegay avocado toast aad baa loo ugu noqday ayaantan marka toast oo qamadi ah iyo avocado oo maxay ahayd milix iyo liin dhanaan iyo toon powder ku daray marsana toastiga ama rootiga sidoo kale hal xabo ukuna fuuriyay iyo yaanyo liin korka uga miiraya iyo toon powderka toonta oo powderka macaan dhadhan macaan bay siinaysaa marka sidaas u cuna ka heli doontii runtii afakaadada markaa ku quraacdo runtii gaajo ay ma qabato ilaa waqti dheer yani subaxii hadaa ku quraacdo laga yaabay maqrib ku dhawaad inay maxayda ama galab gaabkii inaa cunto raadiyo marka cunto aad u fiican oo u mac waayo qadadii ama wajbada u dambeysay waxay ahayd maanta baradhadan bataatiskan baradhada bataata xilwa ama bataatis af Soomaali lagu dhahaa u malaynaya waa jarjaraya biyaha ku furinaya sidoo kale waxaa halkan ku haystaa xoogaa yar oo kufta ama hilib shiishiid oo kuusay oo wax yar oo saliida ku gadgadinaya sida uu bislaado baradhadii markay karkartay waatana diirka ka fiiqaya marka diirka ka fiiqo waa dhandhanaaninaya xoogaa yar oo basal iyo barbarooni iyo milix iyo xawaaj baa ku dhandhanaaninaya haddaad tijaabisiin runtii baradhada sidaan noocan haddaa u karisiin macaan waaye waad ka heli doontiin dadaa jira markii la karkariyo biyo lagu karkariyo sidooda ku cuna laakiin ani marmar saana ka dhigtaa dhanaan macaan bay leedahay xoogaa yar ilaa ay ka gaduudato aga gadinaya xawaajka haysatida ku darsanaysaa barbarooni iyo basal waatana cuntadeeni baradhadii iyo ansalaato iyo maxay ahayd kuftadii ama hilib shiishiidkii oo ku kuusay oo maxay ahayd oo dhandhanaaniye cunto aad u macaan waaye oo aad u nafaqo badan markaa tijaabiya maantana waxaa ku quraacday maalintii toddobaad avocado toast avocado kaliya iyo loos avocado toast aad buu u macyahay love baa ku ah ciyaantan marka aad idinkugu dhiirigelinaa inaad tijaabisiin hal xabo ukuna oo shiilayn oo korkaa ka saartay waa cunto oo mutakaamil oo healthy wax oo gaajo kaa qabanaya ma laha
cuntooyinka qaar markaa quraacatid ciyow gaajo ku qabanaysa laakiin avokaadada iyo ukunta markii la isku daro ama lowska oo rootiga sidaas loo marsado wax ku dhergaysid borotiin badan oo aad uga heli doontiin. qadadii waxay ahayd ansalaato iyo tuna ama malayga gasaca. ansalaatada waa yaryareen oo jarjaraya, toonada gasaca ku jirta ku daranaya, saliidda markaa ka miira kadib xogaa yaroo bariisa oo yaalay oo kariyay ilmaha u kariyaa maxaad ku darsaday. waa cunto aad u macaan, waa wax healthy oo khafiif ansalaatada aad ay muhiim u tahay. hadda aragtiin daa'iman aniga waa cunaa ansalaatada, maxaa jira faa'iidooyin badan ay leedahay cuntadana yani markii lagu darsado waad ku dhergaysaa ciyow, fitamiinaad badanna way leedahay. marka ansalaatada waa wax aad u muhiim waxaa ku dadaashiin inaad ku darsatiin maalin kasta cuntadiina. basbaaskan aad u macyahay sriracha la dhahaa, marka basbaaskaas wax kasta cuntada waa ku darsadaa. maalintii u dambeysay quraacdii waxay ahayd yogurt iyo granola iyo moos. quraac aad u fudud waaye, wax waqti kaama qaadanayso. qadadana waxaa ka dhigtay ansalaato iyo xumuskan asagoo diyaar aad ka heli kartaa supermarketka xayaat ka soo gatay. diyaar waaye. ansalaatada jarjaranaya, xumuska dhinac ooga shubanaya. xumuska faa'iidooyin badan uu leeyahay, borotiin buu leeyahay, cuntooyinka lagu dhergo buu ka mid yahay. markaa xumuska ku darsado qaado saliid saytuuna ku daraya iyo xoogaa yar oo zactar zactarkana asagana aad buu u fiican yahay, dhadhan buu cuntada u yeelaa. faa'iidooyin badanna wuu leeyahay, geedageeda la isku daray waa. marka labadaba waxaa ka heli kartiin xayaadaa ka soo gartaa. dhadhan macaana wuu leeyahay, waana ku dhergeysaa. haddaa rabtid sidaan ku cuni kartaa ansalaatada qaado iyo qaadada aa ku cuni kartaa, ama haddii kale gabal yaroo rootiya sidaad doontid waaye. waa cunto aad mutakaamil oo healthy oo maxaa ahayd aad u fudud oo waqti kaa qaadanoyn. cuntooyinka badanaa fiideogan soo dhigay waxaa ku dadaalay in ahaato waxyaabo oo fudud oo waqti badan kaa qaadanaynin. fiideoga cunto karis kuma saabsanaa, wuxuu ku saabsan yahay kaliya fikradooyin inaa idin siiyo waxyaabo healthy oo dietka aad cuni kartiin oo ka istafiidi kartiin. marka waxaan rajeynaa asxaabta insha allah inaad ka hesheen fiideoga like iyo share, igu soo raaca baraha bulshada. fiideoga aad u share gareeya. khayr idin rajeynaa. assalaamu calaykum.